natiijadii doorashada xubinta joogtada ee gobolka bari ayaa ahayd haldheeri waayo laba mudanay ahaayeen keliya kow xildhibaan bashiir askar xuseen wuxuu helay 22 cod xildhibaan jaamac yaasiin jaamacna wuxuu helay 40 cod tirada codaysay waa 62 mudane sidaa darteed insha allah waxaan qirayaa inuu ku guulaystay xubintii joogtada ahayd ee gobolka bari mudane jaamac yaasiin jaamac natiijadii doorashada xubinta guddiga joogtada ee gobolka gudaha kursiga koowaad tirada codaysay tirada mudanayaasha ee codaysay waa 63 mudane kow xildhibaan aweys axmed sacdeeye wuxuu helay 16 cod xildhibaan cabdiqali abshir jaamac wuxuu helay 47 cod waxaan qirayaa inuu xubintaa ku guulaystay guddiga joogtada ee gobolka gudaha kursiga koowaad mudane cabdiqali abshir jaamac بسم الله الحمد لله الذي كفى به نستعين على الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين natiijada doorashadii xubinta guddiga joogtada ee gobolka mugaal kursiga labaad tirada codaysay mudanayaasha oo 63 cod xildhibaan cabdilaahi saciid axmed wuxuu helay 14 cod xildhibaan fa'aad abshir axmed wuxuu helay 48 cod waxaa xumaaday 1 cod saas ayay ku ogaan tiradii mudanayaasha sidaa darteed waxaan qirayaa inuu ku guulaystay kursiga ama xubinta guddiga joogtada ee gobolka mugaal kursigiisa labaad mudane fa'aad abshir axmed بسم الله الحمد لله الذي كفى به نستعين على الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين natiijada doorashadii xubinta guddiga joogtada ee gobolka mugaal kursiga labaad tirada codaysay mudanayaasha oo 63 cod xildhibaan cabdilaahi saciid axmed wuxuu helay 14 cod xildhibaan fa'aad abshir axmed wuxuu helay 48 cod waxaa xumaaday 1 cod saas ayay ku ogaan tiradii mudanayaasha sidaa darteed waxaan qirayaa inuu ku guulaystay kursiga ama xubinta guddiga joogtada ee gobolka mugaal kursigiisa labaad mudane fa'aad abshir axmed هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم halkan waxaan ka mas'alaynaa xubnihii toddobada ahaa oo ay soo gudbiyeen gobolladu iska soo waafaqeen xubnaha soo kala ahaa kow jaamac cabdulle laba cawil xasan daar 3 muuse siciid xasan 4 cabdilcasiis siciid maxamuud 5 cabdiraxmaan diriye carab 6 nimco cabdi caarshe 7 cali axmed saar tirada codaysay xildhibaanada fadhiyay 57 ayay ahayd 6 baa ogolaaday una cadeeyey ansixiyey 7 cod diin ma jirto aamusna waa mudane waxaan markaa qirayaa insha allahu in xubnahaasi yihiin guddida joogtada ah ee golaha wakiilada marka laga tago 3 xubnood iyagoo caalim kala baxay codka u kala baxay waxaa maanta soo gabagaboobay marka guddigii joogtada ahaa waa dhamaystiray 10kii madax guddi saas ayay hawshooda ku soo gabagaboobay ilaa kuna soo dhamaatay mahad ilaahay baa iska leh golahoona wuxuu muujiyey shaqo wanaagsan iyo dulqaad badan aad baan uga mahadcelinaynaa hawshana maanta intaas ayay ku gabagabaynaynaa shukran waa la dhexleeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi aad iyo aad baa mahadsantihiin marka hore salaamayaa marlabaadka waxaa guddiga joogtada ah waxaa sida ku cad xeeroosaadka golaha wakiilada baarlamaanka wuxuu yeelanayaa guddi joogta ah
guddiga joogtada waxa weeye marka baarlamaanku xiran yahay ama fasaxa uu yahay waxay sii wadayaan hawlihii golaha wakiilada waa golihii wakiilada oo yar waxay sii ansixinayaan wixii xeerara loo baahdo waxay si asbuuclaha ayay u shirayaan oo arrimaha dalka u falanqaynayaan waxyaabaha ka jira arrimaha siyaasadda arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha macnaha baarlamaankii oo waxa weeye la soo koobay wuxuuna ka kooban yahay 10 madax guddi iyo 3 guddoonka 13ka iyo xogeyaha oo qaaliya marka waxa weeye hadda waxa la doortay madax guddiyadii baarlamaanka oo dhamay marka madax guddiyadaas ayuu kala aadaya nin walba guddi buu gelayaa guddiyadaas mid 3 xubnood noqda mid 6 noqda mid 7 noqda xubnahaas marka iyagu joogto ahaan maayaan laakiin xubnaha guddiga ay ka mid noqonayaan joogtada ama guddiga shuruucda iyo cadaaladda guddoomiyaha loo magacaabo guddigan la doortay kamid ah guddoomiye looga dhigayaa guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka guddiga kaabayaasha dhaqaalaha hawlaha guud iyo ganacsiga guddiga kheyraadka dabiiciga iyo deegaanka saasa loo kala magacaabaya waxay ku aadan yihiin hawlihii xukuumaddu fulinaysa marka dabagalna way ku sameynayaan kormeerna way sameynayaan arrimahana ishay ku haynayaan marka fadhigu yimaadana baarlamaanka warbixin bay ka siinayaan mid walba guddi walba meesha ku aadanaa ay warbixin ka siinayaan si baarlamaanku xog u helo ugu falanqeeyo fadhiga loona gudbiyo xukuumadda marka waxyaabihii ama dhaliila ama toosina ama bahalka marka waa baarlamaankii oo yar asbuuciina hal mar bay shiraan sida golaha xukuumaddu khamiista u shiro iyagu maalin asbuuca ka mid bay shirayaan arrimahaasay ka doodayaan wixii loo baahdo xeerana si ku meel gaara ayay u sii ansixiyaan marka baarlamaanku yimaadana waa baarlamaanka markaas si u dambeysay ansixinaya marka shaqadoodu waa hawshii baarlamaanku hayay oo la soo koobay muddada fasaxa ayay u xisaaran سؤالنا لو ودينا أحمد يا بطل بسم الله الرحمن الرحيم أنا لو دينا هذا كلام اللي معنا هل كان معناته حكى دعاية ترتم هذه اللي بعد تقني لو بدي إنه ونكر هذا لا ترتمي أنا ترتمي سين أنا بدي تشوف كذا طلعوا كذا كذا فلان بعلم كاشنات وكل حمال سوا سيد رينج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والله درانك يبغوا اسك عادي waxa kaliya aan dareemaynaa waxa weeye mas'uuliyadda nasiifu shay daawalna xubno waxaanu ahayn baarlamaanka soo galay oo matalaya dhammaan guud ahaan Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal haddana guddiga joogtada baarlamaanku uu kalsoonidiisu nagu siiyay inaanu inta ayagu ay maqan yihiin aanu ku matalno oo joogtada aanu sii wadno hawlaha xilliyada kalfadhiyadu aysan jirin waxaan dareemaynaa mas'uuliyaddii oo noo sii laba jibaarantay xildhibaanada sharafta leh iyo mudanayaasha kalsoonida la siiyayna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin dhammaan shacabka iyo guud ahaan reer Puntlandna guul baan u rajaynaynaa iyo inaanu shaqo hufan insha Allah taala anaga iyo saaxiibadayada kale ee hore loo soo gudbiyay guddiga joogtada ah dhammaan xubnihiisa iyo guddoonkaba iyo dhammaan golaha wakiilada xubnihiisa oo dhan inay shaqadooda si wanaagsan uga soo baxaan insha Allah hawlo wanaagsan oo qabto aad iyo aad baan mahadsantihiin سؤال شباب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا وصاحبك فؤاد شيغي ومانتنا لو دورتي waxaan dareemaynaa mas'uuliyad inayna fuushay aan xubnaha kala saarnayn oo aan hawshoodii iyo wixii ku dhici lahaa oo dhan ay nagu dhaceen ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan la kaashanaynaa inuu noo fududeeyo mas'uuliyadda aan qaadnay oo joogtada inaan u noqono xubnaha golaha wakiilada kaalmo ilaahay baan insha Allah baan dalbanaynaa iyo ducada dadka wanaagsan ee muslimiinta ah akhyaarta inay noo soo duceeyaan in ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naga dhigo kuwii dalka ilaahay ku samata bixiyo
dalkeenna iyo dadkeenna waxay la daala dhacayaan xawaalo fara badan iyo culaysyo fara badan runtii waxaan annagu diidiilaysanaynaa inaan arrimahaas maaragtay aan noqonno kuwii ilaahay subxaana wa tacaala ummadda ku badbaadin lahaa oo ka sabata bixin lahaa intaasun baan oranayaa saaxiibkii Fuaad baa dhameeyey oo hadalkana iga mudnaa waan idin salaamaynaa dhammaantiin alxamdulilah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arrintii ansixinta iyo doorashada isugu jirtay oo golaha joogtada ah oo 7 ka midana ay soo gudbiyeen gobolladooda 3 ka midana lagu tartamay oo aan u arko in ay xildhibaanada ku doorteen ciddii mudnayd oo awalba dadka gobolladu u garteen oo dad kale ay ka daba yimaadeen oo arrintii barlamaankii gobolka mudanayaashii laga soo doortay cidday u aasteeyeen ciddii ku qabsatay inay meeshaa wax ku weyday kuna guulaysteen xubnihii sida aqlabiyadda la isugu raacay arrintaana waa soo dhowaynayaa waxaan ku soo dhowaynayaa doorashadii ay ku guulaysteen waxaan ku soo dhowaynayaa inay xildhibaanadu xaqsoor sameeyeen oo ciddii ku habboonay doorteen marka aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhowaynayaa